mu'tamaraadka noocaana oo khayrka la iskugu imaanayo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco dhammaanteen in aan sahay ka qaadanana waa loo baahan yahay oo qofka markuu yimaado masjidka oo culummada ay yimaadaan oo ka soo safraan meelaha fogfog sheekh kastaba wuxuu la imaanayaa faa'iido loo faa'iideynaya annaga sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah in faa'iidada uu ka faa'iidaysto muxaadarada maanta waxaan ka fahmayey arrinkaa iyo arrinkaanna waxbaan ka bedeli doonaa ilaahayna waxaan baryaataa inuu igu hanuuniyo laakiin haddii mu'tamarka uu iska noqdo wax caadi ah aanu imaano aan dhegaysano waa khayr badan kuwo badan baa imaanayni laakiin haddii aan iska baxno lagu camal falin qofka iimaankiisa wax uu iska bedelin markuu muxaadarada ka baxo oo ittaqi illaah markaana la dhaho dhammaanteen aanu nafteeda ka tegaynin ay iska noqoto wax caadi ah ilaahay ka baq ilaahay ka cabso ay iska noqoto wax routiini ah ta'hiir ama raad kuma lahaanayso marka in sha allahu tacaala mawduuca waxa weeye waa xishoodka ee caalamka maanta la joogana xishoodka aad baa loogu baahan yahay marka in sha allahu tacaala sheekhaan uga bixi doonaa doctor cabdulcaziiz cali axmed falyatafadal mashkuuran ma'juuraa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هضله شكرك إلهي سبحانه وتعالى ma dhammayn karo lianna nicmooyinkiisa habeenii maalin baynu ku dhex jirraa waa inaan ilaahay ku shukrino subxaana wa tacaala shukriga ilaahayna waxaa ka mid ah ruuxa bini aadamka waxa ilaahay uu ku waajib yeelay inuu ka soo baxa awaamirtu ilaahay ku faray inaad ka soo baxdo ilaahay subxaana wa tacaala meeshuu kaa rabo inaan lagaa waayin meeshuu kaa rabinna inaan lagaa helin taasi shukriga ilaahay bay ka mid tahay inta addoomaha ilaahay ku shukriyana way yaryihiin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waqaliilu min cibaadiya shakuur kuwa shukriga inagu shukriyaa way yaryihiin addoommahayga kuwa yar weeyaan ruuxa ilaahay shukriga uu waafajiyana nicmo badan buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala lianna waa towfiiq uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waafajiyey in aad ku shukrido ilaahay subxaana wa tacaala shukrigaa ayaa shukri u baahanaya markaa nicmooyinka ilaahay haddaynu tirano gaadhi mayno wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu noo xisaabo oo xisaabo xil male laysku qaado maalinta qiyaama wax badbaadaya ma laha laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagoo og dacfigeenna ayay naxariistiisa waasac noqotay waraxmatii wasicat kulla shay saasuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala jannadana walaalayaal laguma gelahayo ruuxa camal uu qabtay kuma gelahayo oo jannada fadli ilaahayaa lagu gelaya subxaana wa tacaala haddii la yidhaahdo jannada camala lagu geli waxa weeyaan xisaab baa laysku qaadaya ruux kastana wuu halaagsamaya rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi lan yadkhula aljannata axadun bicamalih ruux camalkiisa janno ku gelahayo ma jiro marka u fiirso hadalkaas waxa weeyaan waa caam way ruux ku geli camalkiisa janno ma laha fadli ilaahay lagu gelaya jannada markaas saxaabada waxay dhaheen yaana carabi bay fahmayeen markuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahadun waxay ka fahmeen hatta rasuulku inuu soo gelahayo wala anta ya rasuul allah adiga hatta rasuul allah kuma gelaysid miya jannada camalkaaga may yiri kuma gelahayo illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu ilaahay rahmad xaqiisa ka haatay inaa helo mooyaane camalkay kuma gelahayo marka dadka say u kala sareynayaan markii jannada la wada galaa dadka la qaybinayaa manaazish si loo
camal badnaa loo kala cabsi badnaa saasaa loo kala sarmaraya laakiin kadinka hore ee jannada la gelahaya fadli ilaahay lagu gelaya subxaanahu wa tacaala ilaahay fadligiisa hana siiyo marka walaalayaal maanta muxaadaradan waxaa loogu cinwaan daray alxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa qeyb iimaanka ka mid ah waa xadiid rasuulka sala allahu calayh wasalam dadka hortayda fadhiyana waa haween waay lianna ragga haddii la sheego xayaa iyo xishood haddii la sheego ruux kasta qalbigiisa waxaa kusoo dhacayaa dumar baa kusoo dhici lianna asalka iyagaa iskale xishoodka asalka iyagaa iskale xishoodka marka mar hadduu xishoodka iyaga ay leeyihiin bal xishoodkii aan laysku ogaa oo ilaahay idin siiyo xaggiina uu soo mariya bal xaggee buu jiraa ma nalaga helay mise waxaan u baahannahay bal inaan isbaraarujinno oo mar kale boorka aan iska jafno waxaan kusoo koobayaa xayaa xishoodka ka hadalkiisa xishoodka macnihiisa muxuu yahay xishoodka iyo ruuxa inuu yaxyaxo maxaa u dhexeeya farqi fadliga xishoodka iyo asbaabta keentay inay haweenka maanta joogaa inay xishoodka ka tagaan waa maxay lianna shay kasta sabab buu leeyahay iyo madaahir wax la yidhaahdo waa maxay asbaabta keentay marka walaalayaal xishoodku macnihiisa waxa weeyaan dabeecad uu ilaahay ruuxa siinhayo oo ruuxaasi ku xambaarayso inuu xumaanta uu ka fogaado dadka xuquuqdoodana uu ilaaliyo uuna ka gaabinin xishoodka macnihiisa ay culimmada ku fasireen waa kaaw waxa weeyaan dabeecad iyo khuluq iyo tacaamul uu ruuxa ilaahay siinhayo tacaamulkaas iyo habdhaqankaas kugu bixinhayo mise kugu boorinhayo oo kugu qaadahayo in aad ka fogaato xumaanta inaad samayso xumaanta inaad samayso iyo wax kastoo qabiixa inaad kaga dheeraato kaana reebahayo inaad xuquuqda lagugu leeyahay aad ka gaabiso xishood markaa macnihiisu waa saas marka waa macno weyn waayo annaga markaa intaan ku xambaaraya intii loogu talagalay xishoodka isma laha marka naftaasi waa inay hesho sifadaasi ay iskaga fogaato xumaanta iyo dadka xun iyo meelaha xun xuquuqda ilaahay iyo dadka kale ay ku leeyihiinna ayna ka gaabinin si loogu talagalay ay u siiso kaasaa xishood la yidhahdaa alxayaa kaas weeyaan midkuuna rasuulka tilmaamay alxayaau shucbatu min aliimaan kaasi macnaha xishoodka markaa adiga hadda miisaan saar xishoodka macnihiisa saas weeyaane adiga ma lagaa helay xishoodkaas kaasoo kugu xambaarahayo inaad xumaanta ka dheeraato xuquuqda lagugu leeyahay ilaahay ha kugu lahaado uunka iyo bini aadamka ha kugu lahaado ma ka gaabaysa mise kamaadan gaabinin haddii aad wixii xun aadan ka dheeraanin xishoodku ilaahay sheegay kumaadan sifoobin haddaad rabto xijaab kuman xiro wax kasta samee mar haddii xumaanba iyo dadka xun agtooda lagugu arko mise xumaan aad ku dhaqaaqdo haddaad rabto xishow oo afka qabso waxa weeyaan isqariskaasi wax uma taraayo xishoodka ilaahay uu ogaa waa kaa fog yahay haddaad ka gaabinayso xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala una si camalkaaga uuna kugu xambaarin inaad ilaahay ka cabsato xiriirkiisa iyo awaamirtiisa aad ilaaliso iyo dadka xuquuqda kugu leh iyo bini aadam kale xuquuqda kugu leh aad ka gaabinayso xishoodna uu kaa dheeryahay xishoodka macnihiisu marka waa saas weeyaan marka xishoodkaasi muxuu leeyahay fadligiisu waa maxay haddii saana laga helo sifadaas sifooyinka haddiina laga helo fadli badan iyo faa'iidooyin badan baan ka helaynaa adduunya aakharaba xishoodku waa miftaaxu kulli khayr ruuxii xishood laga helo sifadaan usoo tilmaamana looga helo khayr kastaa albaabadiisa ilaahay u furay subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi alxayaau laa ya'tii ilaa bikhayr xishoodka lama imaado ilaa khayr unbuu la yimaadaa khayr unbuu la yimaadaa marka xishoodku khayrka asalkiisao dhan waa xishood hadduu xishood tagana khayr oo dhan wuu tegayaa
khayr oo dhan uu tegayaa. xishoodku midda labaad wuxuu xirayaa shar kastuu xirayaa, waa miqlaaqu kulli shar kastuu kaa xirayaa. lianna rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. wixii dadkii hore laga soo gaaray ambiyadii hore iyo ummadihii hore ee hadalladooda wanaagsanaa waxaa ka mid ah haddaadan xishoonaynin waxaad rabto samee. haddaadan xishoonaynin waxaad rabto samee. ambiyadii hore waxaase laga soo gaaray. marka xishoodku waa inuu noqdo mid kaa reebo inaad xumaanta ku dhacdo, laakiin xishood hadduu meeshii yaalin xumaanna waxba kuma aha. wixii ilaahay uu manciyey uu diiday uu kaa reebay haddaad ku dhaqatana xishood agtaada ma yaallo. wax kastoo caqliga uu diidahayo haddii lagaa helana xishood agtaada ma yaallo. markaa u fiirso, waa inuu kaa xiro shar oo dhan uu kaa xiro weeyaan. markaa xishoodku waa akhlaaqda midda ugu wanaagsan wa oo ugu weyn ilaahay agtiisana qadar ku leh, ugu nafci badan bini aadamka nafci weynna way ka helayaan. ruuxaan xishood lahayn oo xishoodka ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala jirkiisu waa dhiig iyo hilib un weeyaan, wax kale oo khayr oo ku jiro ma laha. wax kaleoo khayr ah oo ku jiro ma laha. jirkiisu waa un insaaninimadaasi bini aadamnimadaa ka muuqato waxaa u soo haray bes dhiiggii iyo hilibkii besaa usoo haray. xishoodku meeshaas xishood la-aantu meeshaas ku gaarsiinayaa. adiga xayawaan markaa ruuxii xayawaanku waxba isma dhaamaan. ruuxii xayawaanku waxba isma dhaamaan. suuraddaa daahirka oo bini aadamkaad xambaarsan tahay waxba ma tarayso mar hadduu xishood kaa maqan yahay. midda saddexaad alxayaau xishoodku miftaaxu likulli aacaat. daaco kastuu furo u yahay xishoodka, lanna xishoodka wuxuu kugu xambaarayaa wanaag kastuu kugu xambaaraya. ilaahay inaad ka gaabiso ayuu kaa reebaya. bini aadamka iyo xayawaanaadka iyo jiiraanka xuquuqday kugu leeyihiin oo dhan ayuu kaa reebayaa inaad ka gaabiso. marka miftaaxu kulli khayr, sidaasuu rasuulka sal allahu calayh wasalam uu ugu tiriyey xishoodku inuu iimaanka ka mid yahay. alxayaau shucbatu min aliimaan, sidaasuu rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi iimaanku waa 70 mise dhowr iyo 70 mise dhowr iyo 60 qaybood weeyaan. iimaanku dhowr iyo 70ka qaybood mise dhowr iyo 60ka qaybood waxaa ka mid a xishoodkaa ka mid a. xishoodka ayaa ka mid a. tan kale alxayaau miftaaxu maxabat illaahi subxaanahu wa tacaala. xishoodku wuxuu kuu furayaa uu furo u noqonayaa ilaahay jacaylkii subxaanahu wa tacaala. ilaahay hadduu ku jeclaadana ilaahay ruuxuu jecel yahay ma cadaabahayo. ilaahay ruuxuu jecel yahay ma cadaabayo. hadduu ilaahay xishood uu faraha kuu saaro oo ilaahay dhaqankaaga dhigo oo akhlaaqdaada xishood ilaahay uu ku dheeho, ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisaaad helaysaa. jacaylkiisa ilaahay baad helaysaa. rasuulkan sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina allaha yuxibu alxayiya alcafiifa almutacafif. ilaahay wuxuu jecel yahay kan xishoodka badan oo dhowrsanaanta badan, dhowrsoonaanta ilaahay siiyey, kaasaa ilaahay uu jecel yahay. marka xishoodku waa khuluq aada u weyn. ruuxii laga helana ilaahay liibaan adduuniya aakhare gacanta u geliyey. marka daacooyinka dhan salaada markaad tukanaysa xishoodaa kugu xambaaraya sidii loogu talagalaad u tukanaysa, leanna ilaahay baa ku hortaagana waad ka xishoonaysa. xuquuqdaada guriga markaad gudanayso siduu ilaahay ugu talagalaad u gudanaysaa, waadna ka xishoonaysaa inaad ka gaabiso. waa nicmo ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala. marka miftaaxu kulli aacaat iyo maxabat ullaahi subxaanahu wa tacaala ayuu la imaanaya xishoodku. waxaa kale xishoodku uu noqonaya miftaaxu zinati walbahaa, quruxda furaheeduu noqonaya. gabadha xishoonayso oo ilaahay xishood uu ku arsaaqay waxa weeyaan quruxdeeda muuqanayso, lianna wuxuu kugu xambaarayaa wixii gabar laga rabo dhan in laga helo gabadhan. xag tacaamul ilaahay iyo xag tacaamul addoomihiisa dhan ayaa laga helayaa in nafteeda in ay la tacaamusho. ruuxa hataa naftiisu waa inuu ka xishoodo, lianna naftan haddaadan ka xishoonin meelo badan bay ku gelinaysaa aadan la xisaabtamin. marka rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay maa kana alfuxshu fi shayin ila shaanahu wama kana alxayaau fi shayin ila zaanah. fuxshi iyo qaabdari iyo hadal xumi iyo tacaamul xumi lagama helo shay ilaa wuu fool xumaynaya.
روح كما دقمو فحشي iyo waxaan macna lahayn illa uu fool xumaynaya quruxdii adduunka taa lagu siiyo xishoodkana shay ma galo illa uu qurxinaya xishoodkana shay ma galo illa uu qurxinaya marka miftahu zinati quruxda iyo hanaanka wanaagsan oo dhan buu furo u yahay marka xishoodku waa inuu kugu xambaaro deganaan oo dadkana aad weyneyso naftaadana aad weyneyso sid weyneyn naftaada waa inaad kala fogaato wax kasta oo xun meel kasta oo xun iyo dad kasta oo xun aadan noqonin ruux markii la arko calaamo xumaan in la arkay aad noqoto markii lagu arko ruux wanaag calaamad u ah oo ilaahay la soo xusuusanayo khayr kasta la soo xusuusanayo markii indhaha lagu saaro laakiin haddii lagu arko shar oo dhan haddii la soo xusuusanayo xishood agtaada ma yaallo marka waa inay arrintaas ilaahay looga cabsado oo xishoodkaasi la ilaaliyo si aan waxyaalahaasi faa'iidooyinkaasi aan u helno rasuulka midda lixaad alxayaa'u miftaaxu ljanna min mafaatiixi ljanna jannada waxyaalaha lagu furanhayo xishoodka ka mid a xishoodka rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alxayaa'u min aliimaan waaliimaanu fi ljanna xishoodku iimaanku ka mid yahay iimaankana jannada dhexdeeda jooga markaa sababta lagu heli من أسباب السعادة كم التهي ليبانتا روحه وحكوه حياغاسي أن صوت المامي كاسو كو حنبارا إن حمان تقفوغاتو حقوق دا القولة تي إلهي يتي خلق قبا آدم كقابنين تاسي وحيكون قنيسا سبب من أسباب السعادة ليبان الدنيا آخرة أي إلهي قعمال كوكلين مركا روحي اللهويو مساو حشاب دركيس الله حرا عيب تاضر إلهي هو أسطرية عيب تاضر دان إلهي وأسطرية هدي حشاد دركيس الوحرة وإلهي وكوهويو عيب تاضر إلهي وأسطرية والله أسطرية مركا حشاد كاسي أن صوت المعنى وكاويا نعمد إلهي أن فيرنو سبحانه وتعالى وقابن أن كقابن حقوق دي إلهي أن أرقنو أيو كتلنا يا حشاد كحالة اللي راه مركا حويا وطبيعة داسك وحن باريس وناقا iyo tacaamul wanaaga kugu xambaarays waxyaalaha muxuu ahaay cadaabta lagu galo oo ruuxa uu ku dhurdarsan hayo oo shaqo ku noqon hayo waxa kamida inuu ruuxa qalbigiisa adag yahay qasil qalb fawaylu lil qasiyati qulubuhum la yuhiri waadin naareed ba usugnaaday dadka qalbigooda adag khayrkana gelaynin xumaantana ku aruurays jumudul ayni indhaha oo qalala oo abaar noqdo oo xabsida ilaahay iyo quraanka la aqrinayo oo ku ooynaynin ruuxan waxay kamid tahay calaamatu shaqaaw ruuxan inuu shaqi noqdo waxyaalaha tusahayo kitaabka ilaahay dadka lagu aqriyo muuminiinta markii lagu aqriyo idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum iimanan wajilat qulubuhum wa lagu tilmaamay taqsha'iru juluduhum tirkooda qoma dhacyoonaya indhahoodan way ilmeynayaan hadii laakiin ishaadaba in laga waayo oo hatta hadaad isoohiso oo hinna iimaanaynin marka gadaal ugu noqo qalbigaaga wuxuu u baahan yahay daaweyn weyn buu u baahan yahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala inuu daawadaasi ku siiyo qalbiga uu ku daawo ilaha wa qillatu alhaya xishoodka yarna wuxuu keenaa cadam saada liban la'an kadalika ruuxa inuu adduunku daba taagnaado oo aakhirana ka fikirin amalkiisa iyo diiladiisa dhan adduunka ku xirantahay wuxuu ka fikiraya inuu adduun wuxuu ku qabsan lahaa oo adduunku saa u daba ordaya xagee ku dambayni adduun uu ka haraya ada tagaya ilaahi aadaya subhanahu wa ta'ala الرغبة في الدنيا إلهي سبحانه وتعالى ووت المامي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدون كان ووحيالا أن معنى لهين ويان روح مؤمن كعقل قلانا إنه الدبور داسا هين إلهي هدو الدون كسيانا قلب جيني كاكا شماها وأنا قعنت كويس هداي كو دافتنا إن هذا نوأركن واح كو دافي هدو إلهي كسيان إلهي دو شكرا قعنت كويستو لكن هداي قلبك كاكا شو وماشي عبادة إلهي محبة إلهي قل لهيد وأدون أوقروا وحاويانا دي الروح الأكسمات وإنا دادك آخران كمين نقلنا آخران كوفكروا تاسنا مكينيسو إنا تشقي سنويدو أدون كوفكرويد تاسنا كوها قاجنيسا أدونك إيا آخران كوها قاجنيس إلهينا سبحانه وتعالى الرمها وكوها بينيا هدو آخران فكر كاغا أون نقضو ود ملكموت كفكرتو والإلهي محله ارتقي دونتا
ولا حسابتما يا أمدني ما أنت محال هيسا وتكون بدبادي لأن الروح كستا نفتي سيساقون ببدبادين مركا هدي جعل الدون وقلبي قايقا قلنا وحيالها ليبان تددك كفو قايق كمدي يطول الأمل ينفتا إني كفكرتو إني أجل بدن هليس بقول الله سنة أي نولان أي أنفرين يسو وح كهريو ملكمون وهل كان تاقيه والنفتا هذا يديلة دير هذا جاري كرين أتكحرتو شنتاسي وحيالها شقاوة يدور درسيقا إيا محوها هاي سعادة لآنتا أي كتما ضيدهين وقلبك إنكين إيا إندها إلهي سبحانه وتعالى أنو أينين آياته سي إيمانك وكاحرا حتى الروح سويسيان كإيمانين إيا قلة الحياة إيا حشود ير إيا أدون أول إسراعيو لجعلاضو إيا أمل كاغا إيا يددل ذا ديراتو شنتاسي وحويان وحيالا صفوين في عن معها روح مؤمن كنا إنه إسكيفو قادو أي واجبه روح إلهي كحشودو يسوى إلهي أطيعها يو مركا الدنبي كل عدو إلهي كحشونا ينوكو عذاب لأن إلهي حشوده كسفوبي رسول كانوا كسفوبي ملائكتنا ويكسفوبي إلهي كحشونا ين روح مؤمن كمركا صفوين كوائنو قاطو أضو إلهي أطيعها يو وإلهي سبحانه وتعالى عمل كوكوتا لقبنا يو حداد كحشوتو مالك الدنبي كل عدو بني آدم باتهاي إلهي وكحشونا يا سبحانه وتعالى إلهي عذابتها انت سيكوما قبنها يو ما دام أتكحشوت إلهي أدو أطيعها يو ما أنت مركا الدم كل عض إلهي وكحشونا يا سبحانه وتعالى مركا ولا ليان حشوتكو فضل قاس أيو ليها فراها بضن فضل قاس أيو ليها فراها بضن مركا حشوتك واصفة وناكسن وإلهي سبحانه وتعالى وكؤو ميددك وناكسن مركا الدون كانوا لن خير ميال لها يو هدي حشوت لقته فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة الدون كردن خير ودن وكب حياة هدو حشوتكو وحل وكلا الصعدو إلهي وددكم كلا إلالنا هيو حقوق دي إلهي اللوغة صوبحيو حقوق دي خلقي اللوغة صوبحيو وحشوتكو فلا والله روحا ودارتي ما في العيش خير نولش وح خير كمجرو ولا الدنيا الدون كالوح خير كمجرو إذا ذهب الحياة هدو حشوتكو يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء يعيش المرء روحه نولانا يا بخير خير بكون نولاني ما استحيا انتو حشان هيو خير بكون نولاني سيدي جيدها هدي ما يرحدي إيا لغا ديرو إيه هايستا إيا لغا وضقاده كل من نولانا ويدمانا يان جيدهاس وحيكون نوجهين بيها مريان وابا وحويان علانتان إيواحان جدك مرة هي جدك جردينتا جيدك دي لغا قاضو ما يرحداس لغا جيدو wax kasta laga bixiyo geedka nolol way ka tagaysa kadalika nolosha adduunkana nolosheeda macaan ma yeelanayso haduu xishood tago haduu xishood uu tago marka ruuxa haduu xishood waayo oo xishood la'aan uu noqdo waxa weeyaan doqon buu ku soo baxaya wax mancin hayo wanaag wax wanaag farahayo dhanna malaha uu aqbalahayo wanaag la farana ma aqbalahayo xumaan oo dhanna way isugu iimaanaysaa wuxuu noqonayaa ashuun dabagedisan haddii biyo lagu shubana ku sugnaan maayaan marka xishoodku islaamku meeshaas uu ka joogaa xishoodku markaa walaalayaal wuu qaybsamaa xishoodka mid ilaahay ruuxan u dhaliyay ilaahay siiyey iyo mid la bartay oo la iska keenay oo lagu tacaamulay oo ruuxa kasbaday inay u qaybiyaan ruuxan ilaahay xishood buu u dhaliyay xishoodkaasi uu dhaliyay wuu ku dhaqmaa wuuna ku dhashay laakiin midka wax tarahayo xishoodka wax tarahayo waxa weeyaan xishoodka iimaanka kugu xambaarahayo ilaahayna kuu dhoweynhayo subxaanahu wa tacaala midka kalena waa la kasbadaa ilaahay oo la barto weynidiisa oo la barto ilaahay oo loogu dhowaado cibaadooyinka ilaahay oo adiga sida adoo fiirinhayo aad u caabudo سيد رسولك صلى الله عليه وسلم وكنت المام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه إن الإله وعابده سيد أدقو أركهيو هذا أركين إلهي ساكو أركيه سبحانه وتعالى مركي آد كليغا تهي إيا مركي آدتك اللجو اكتبا عبادة هذا إيا قلبي قاقع عبسيدي سوسكو من نقضو مالين آدتك كقرصوناتو وإلهي وكو أركهيو مع سيد آد كل عضو
وحويان إلهي كمال حشون لأن دتك آيات قيميسي هدين لغو إمادة هذا وحي كده احترانا وهذا سرورني وهذا قرصاني إلهي كريجي مركو كقول نقضانا كحشون ميسي تاسي وحويان ذنوب تقوني الله سمايو والذنوب توين دتك هلاك تمارن تقيامة عمل صالح كستو أولي مادو عمل صالح كستو أولي مادو إلهي وباب إنيا مر إلهي هدانا كحشون جرين انت أدونك جوبتي مركات كليغان نقطو الذنوب تكود عيسو مركات دتك اللي جوبتنا عدي سلالي نيسو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ساسو لله سبحانه وتعالى وحي اسكقرين أيام دتك أي اسكقرين أيام وناك بيسوتو صحيان مركي دتك اللي جوغان مركي إلهي قوني لنقضانا ذنوب تكود عيام أو وح إلهي لغا حشون لها بيسمين أيام مركا ذنوب الخلوات ذنوب تقوني الله سميه أو ميل أدتك إن دوضا كقرصون تأتكو سميسو إلهي أكتي ويوين تاهي روحنا وحكوها لك سميه مالين تاد أعماش هذا صالح هذا باهنيت لأن الروح إيمانية إلهي وفجي عمل فربضا إنه سميه حديث أبي أمامة وكنت الماما أيو ويلي ننكاسي وحولا إيمانية بورها تهامة وين عمل لأك بولا إيمانية إلهي كل وبابينية مركز عليه رسول الله نوصي فيه dadkaasi noo sifee dadka idinka kamidyihiin habeenkii saad u tukataan bay u tukadaan way soomaan amal la iimaanayaan laakiin waa qoom waay ilaahay maxaarimtiisa iyo wuxuu ilaahay nahiyay markay gooni la noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xadgudba xaqiisa waay meeshaas aad tagaysa marka gadaal isku noqo ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu ka jooga ma lakum la tarjuna lillahi waqaran maxad ilaahay u weyneyn la idinko ilaahay ka cabsanaya ayuu leeyahay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay cadamadiisa wax kastana uu arkaya waa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala cadamadiisa iyo weyninkiisa uu qalbigaada ku weynaado dadkan kale dhan aad wax u arkin xuquuqdooda aad ilaaliso ruux ilaahay fiirinahay aad noqoto wax kastood ku dhaqanaysan inuu ilaahay raali ka yahay wax kastood ka fogaanaysan ilaahay ku xiyay subhanahu wa ta'ala markay saas ilaahay uu ka dhigo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka anta ku gelinaya amalkaagan ilaahay ku ilaalinaya subhanahu wa ta'ala dadkana waa inaad ka xishooto oo xaqooda ilaaliso aadan ku xadgudbin markuu kula joogana aad ilaaliso markuu ka maqayeen aad xamato taana waxa weeyaan xaq darri weeyaan iyo xishood la'aan maalintii laga maqayo hebel uu ka maqayahayna waxa weeyaan waad xamanaysaa waad ku xadgudbaysaa wax baad ka sheegaysaa maalintuu kula joogana waa saaxiibkaaga aad ugu jecleed la wajibaad kula dhaqanaysaa xishood uu ka fogyahay taana waxa weeyaan waxyaalaha hadhowta camalka bini aadamka ka burburin doona maalinta qiyaama taana waxa keentay xishood darri weeyaan markaad ruuxa manayso aad ruux aynayso oo reehbel aad ku xadgudbayso waa xishood la'aan weeyaan laana xaqoodi maada ilaalinin markaynu qeexaynay xishoodkana waxaan niri inaad xuquuqda lagu leeyahay aadan ka gaabinin walaalka marka xaq kugu leeyahay inaad u naseexayso inaad booqato haduu xanuunsado inaad ilaaliso ruuxi xaman hayaad ka celiso laakiin adaaba ka qayb qaatay dagaalkiisa markuu ka maqan yahay markuu kula joogana waad soo dhaweysay oo waxaad ka dhigtay walaalka kii loogu jecel yahay marka waa in liska ilaaliyo akhlaaqda gooni ee dadka ay ku dhaqmaan marka dadku kula dhaqan sidoo ilaahay raali ka yahay subhanahu wa ta'ala dadku waxaad kula dhaqantaa sidoo ilaahay raali ka yahay subhanahu wa ta'ala sida aad raali ka tahay ma war ilaahay muxuu iga rabaa sida ula dhaqma rasuulka sallallahu alayhi wasallam wu'ada hadithka abi dhar ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan ittaqillaha haythuma kunt meel kasta aad joogto ilaahay ka cabso oo cabsida ilaahay ilaali cabsida ilaahayna waxa weeyaan sidoo Ali ibn Abi Talib uu sheegay al-khawf min al-jalil ilaahay in laga cabsado ilaahay weynaa laga cabsado qalbigaaga uu ku weynaado wal amalu bi tanzil quraanka ilaahay noo soo dejiyay lagu amal falo kitaabkan uu noo soo dejiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay lagu amal falo ilaahay baa ku hadlay subhanahu wa ta'ala adduunkan in lagu noolaado uu sabab noo noqdo in aan ku tagno janna oo adduunkana nahago aakharana xujo ilaahay nooga dhigo subhanahu wa ta'ala والقناعة بالقليل وحي إلهي كسيه أو يرنا أتكو قناعة أدنده ملك الأتاجن لأن الروح عن إلهي وحي سيه سجاسيه أنت أن إلهي بكسيه كو قرتي كمون الظلم إلهي
إلهي أدومي سنما الظلمية انت سوء أركايي خير إنه خير كو جرتو هدوك هاقا بدن لهانا واتكو قالوا بالهيد هدوك هاقا يرين لهانا واتكو قالوا بالهيد روحا كلا أوسيينا انت مكبضا انت الهايست كبضا إلهي باسيي مركا حسد كوات كغديراتو حسد كان واحشو الدروة لأن النعمة إلهي سبحانه وتعالى أوكو سيي والروح كلا نسيي آيات 80 إيسا إلهي نوكا قاضي وحشو الدروة يان إلهينا سبحانه وتعالى حون كيزا آيات كهر ما نيسا قرآن كان إلهي سبحانه وتعالى وحو كيري ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هتمنينا بركين وحي بركة لا يفضل لي إنه إلهي كزو ليها تمنى محا لكن روح كافي عن كا قروح بدن كا حول بدن كا عبادة بدن كا صوم بدن كا خير بدن أيال أريت كا حشود بدن اللهم إني أسألكم من فضلك ده إله فضلك كويديسن كاسا قلبك كسر يا حمانته شيطان وكنت رايه لأن إلهي سبحانه وتعالى وحي آيات قلاش هذا واسأل الله من فضله هذا أركتان إنك كلي فضل بدنتين فضلك إلهي بقيديه إله فضلك يسيده مركب إلهي قلبك وحق الوكا قاضي إني أسألكم من فضلك هذا ويسكت مات لأن إلهي وحيري واسأل الله من فضله مركا إلهي بقيديه نولشان عبسيد إلهي وحا كمدا وحو إلهي كسينات كو قنعضو وحو إلهي قعنت كو قلينات كو قنعضو هاد إلهي كو عابدو هاد إلهي كو عابدو سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الرحيل ما لنت أدونك اللي قد هينا إن هاد الديار قرودو إن هاد الديار قرودو مالين كاس إمي سانا لنوليد مالمي هوري يسنوات كي هوري أن أسلم يرين سوي بديهين ويبديهين ما أنت ملك موت أدو كاتل لابصدي بره أدو كوسوت لابصني مر هدي ساتهاي وإلهي وكو واجب يلي موت دتكوردان ويلي كل نفس ذائقة الموت نفكس تجاري بيتدمنيسا مالن كاسي أدونك لغا قالها يو وإن أدو ديار قرودو لأن مالن كان لو قالها يو إيه سريرت لو صارها يو إيه قرباها الرقا يكو قالها يان لو مدن بان نقوني إن راحيستو إن لغا راحيستو إن راحيستو وقريقاقي جنة bilowgiisa aad u socoto mise inuu adduunka raaxaysto cadaabna kugu bilaabanayso keed rabtaa markaa inaad noqoto ruuxi raaxaysan lahaa mise ruuxi laga raaxaysan lahaa ruuxi laga raaxaysan lahaa wuu hadlayaa markii la wado wuu hadlayaa dadka laakiin wadama maqlahayaan wuxuu dhahayaa intaad ii wadaan naftan xageed u wadaan buu dhahayaa hoogeeda naftan xageed u wadaan kan raaxaysanna wuxuu dhahayaa ila degdeg u dhahayaa لأن أدون كدبكيس وكرر حيسنها إلهي با وحوق بالله يا قبرك قبو يا النعيم أي إلهي وب بالله يا سبحانه وتعالى مركا أدون كان مرها ديساتها هي وحلا يسكت بماها أنتو إلهي كاسي ترى كل نقطة إلهي نقلب جاج وكوين هذا وحيا الوسينا كقنا هذا وديار جرو مالين كاس سين وديار جرو رسولك ونات المامي غير ذا حصوصها إن بدن marka taqwada ilaahay waa xishood ay ku dhisan tahay xuquuqdaas oo dhanna waxaad ku bixinayso waa xishood baa asaas u ah xishood ayaa asaas u ah haweenka iyo xishoodka haweenku saan soo sheegay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay xishoodka haweenka mid ku laran mid ku laran oo ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala oon meel u dhaafaynin haddii xishood la sheegana haweenka la xusuusan xishoodkaasi in laga helo gabdhaha muslimaadka ah markaa islaam gabadha xishoonayso ee xishoodka badan waatee waa midda garanayso ilaahay inuu xishood badan yahay subxaanahu wa tacaala nabigana inuu ka xishood badnaa gabar gashaanti oo hadda soo kacday ee gurigeeda qolkeedii ku jirto ka xishood badnaa kaana ashaddu xayaa'an من العذراء في خدرها أيضا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم حشوت كيس عادي معين ملائكة ويحشوطا إلهينا ويكحشوطان عبادة وقابيان ويرانهيان يا ربنا إلهي وكمان عابد حق عبادتك وملائكة بأساس لي أنا أمرك حقين شو ما عبدناك حق عبادتك أي دعيان وهبين إيمالنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون يلي هبينكن إلهي بو تسبيح سنيان مالكن إلهي بو تسبيح سنيان تسبيح ذا إلهي نكمد عليان بل حديث رسولك صلى الله عليه وسلم يلي
أطت السماء وحق لها أن تئط سمada way dhaqdhaqaaqday waxaana xaq noqday dhaqdhaqaaqaasi inuu dhaco limaada meel afar farood la dhigo ma laha ilaa malag baa sujuudsan mise raakacsan mise rukuucsan malag baa taagan ilaahay caabudahay meel afar farood la dhiga ma laha markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal xadiidkii markuu dhameeyey low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira walakharajtum ila sucadaati taj'aruuna ilaa rabbikum waxaan ogahay haddaad og tihiin in yarna waad qosli lahaydeen in badanna waad oyni lahaydeen in yarna waad qosli lahaydeen in badanna waad oyni lahaydeen bannaanadaad aadi lahaydeen idinkoo ilaahay magan galahay markaa malaa'igtaasi ilaahay saa u caabudahayo ilaahay ka xishoonayaan subxaanahu wa tacaala ay leeyihiin maa cabadnaaka xaqa cibaadatik bal malaa'igta qaar saxaabaday ka xishoon jireen rasuulka sal allahu calayh wasalam maalin isagoo meel fadhiyo oo bowdooyinkiisa ay bannaan yihiin abubakar iyo cumarna ay la fadhiyaan ayuu cuhmaan soo galay markaasuu rasuulka si fiican u fadhiistay uu lowyadiisa qarsaday caaishaa weydiisay maxaad saa u samaysay markaasuu wuxuu yidhi alaa astaxyii min rajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika miyaan ka xishoonaynin nin ay malaa'igta ka xishoonayso miyaan ka xishoonayn marka malaa'igtaasi wasfigaasi markaa waa haweenay gabar og sifadaasi ilaahay uu ku sifoobay rasuulkana uu ku sifoobay malaa'igta ay ku sifowday ay saxaabada rasuulka ay ku sifooween adiga maxaa kaa fogeynaya adiga maxaa kaa fogeynaya maxaad ku baxsanay waa meeshii lagu baxsaday wataasi meesha haweenayda dareenkaasi qabto ayaa haween xishood ku sifowda ah haweenka xishoodka ilaahay siiyey waa kuwa yaqiinsan inuu ilaahay fiirinhayo ilaahay uu ogyahay xaalkooda uuna camalkooda ilaalinhayo uuna ilaahay ka maqnayn subxaanahu wa tacaala markaa ilaahay ka xishoonaya subxaanahu wa tacaala marka adiga kayfa tara allaha seed ilaahay u arkay subxaanahu wa tacaala seed u aragtaa inuu ku dul joogo ku fiirinhayo inuusan kaa maqnayn oo ilaahay uu ku ilaalinhayo ood markaa kadib uu kugu xambaaro dareenkaasi inaad ilaahay ilaaliso subxaanahu wa tacala ilahay aad ka xishooto ilaahay aad ka xishooto bal dadka qaar ee wanaagsanaa waxay ka xishoon jireen inay cawradooda dharka iska dhigaan xataa markay qabaysanayaan sarwaallay ku qabaysan jireen iyagoo ilaahay ka xishoonaya subxaana wa tacaala meel kasta ilaahay uu kugu arkaya ilahay kaama maqno marka adigu faan intee joogtaa waa imra haweenay weeyaan nafteeda ilaalisay karaamadeeda ilaalisay dhoorsoonaanta dharkiisa xiratay laguma garanhayo ilaa fadiila wanaag baa lagu gartay oo markii wanaag la sheego heblaa la xusuusanaya xishood markii la sheego magaalada dhan heblaa la xusuusanaya laguma ishaaro ilaa khayr wanaag unbaa lagu ishaaraa heblo ruux ka wanaagsan ma laha ruux ka qiimo badan ma laha haweenka dhan isku sheegayaan inaad qudwo noqoto lagugu daydo gabadhaasaa lagu tilmaamayaa gabarh xishood badan meelaha xunxunna ka fogaato iyo meelaha fidnooyinka u keenayo dhan ka fogaato waxaan idiin sheegayaa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo gabdhihii uu soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala u fiirsada markaa macno ahaan waxaa la arkaa macno hadda kahor kaaga daahirin oo xishood ku saabsan ayaan insha allah dareensiin doona walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun markuu maaa madyan ceelkii madyan markuu soo gaaray uu fircawn uu ka soo cararay yaa wuxuu helay dad ariga waraabsanhaya wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan wuxuu gadaashooda ka helay laba gabdhood oo arigoodii celinhaya su-aaluu weydiiyey wuxuu yidhi maa khadbukumaa shanigiinna muxuu yahay amarkiinna muxuu yahay markaa u fiirso gabdhahaas jawaabtay bixiyeen lianna su-aashuu weydiiyey laba shay waa suurtagal wa kow maxaad meesha ka haysaan ood arigiinna u waraabsan la'dihiin mise gabdhaad tihiine maxaad inta ka haysaan guriga soo rag ma jooga u fiirsada maa khadbukumaa waa inkaar waay wuu inkirsan yahay maxaa meeshan ka haysaan idinkoo gabdhaha soo guriga rag ma jooga mise amarkiinna muxuu yahay ood ariga u dibdhigaysaan qaalataa laa nasqii xataa yusdira aricaau su-aasha hore taasaan kaaga jawaabaynaa ee ragga lama geli karo ilaa ay xoolahooda uu fulo kadib baan waraabinaynaa amaa canaanta kale aad noo soo jeedisay annaga gurigeenna rag ma joogee wa abuunaa shaykhun kabiir aabbaheenna waa nin waayeel ah ma soo bixi karo sababtaasaan u soo baxnay ee saas u ogow muusow
ساسوه مركا أوفيرسو معناها سوفيرسو لبدي صورتك لبدي مسكح ذا كل عضيبة أو يفيلها هي موسى إنه كف كرها لبدي ويوجه جوابين علاس كان مجلك العريري كان وسوقينا أنت عريري لقب حيو شو درتي رجنا جوري إنه متشوجو أبيه نقلنا واني ويله أريك مسو أرورين كرو فسقى لهما نبي الله موسى وورابي أريك إن الحق بضمبوا إلى حقسي حقي ودحق أريك وورابي ويتجان مركي جوري تجان رمي موسى عليه السلام مركو ورابي أي إلهي بريي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلهي وحي خير السود جسودن ما أنت وأباهنا إلهي إلهي بو دعيستي وان نبي ويان لكن ولي له مدي من رسالة روح وناكسن وقلبي جيس إلهي ووجهي وإلهي بريو إلهي جوابتي سوسيني جوابتها أنا مركز لجو جوابيا مثل شرك وجوس السعودية لا يعلنيا مثل آخر لجو كيدن هيا وخير كذا آخرات كوي ليس فجاءته إحداهما تمشي على استحياء جوابتي مركي ويتمت نبي الله موسى مركو الإلهي وخير كأسود جزوان وباناي فجاءته فأبى لجو عجيه مركو الدعاء ساء دميه وقبل صعوتات من لكن سيكو صعوتي تمشي على استحياء يضو حشوت كسعوت يضو حشون يسار لأن أبوه وحولي ما أنت محاد عيوات صادق ستاني وحالي ما أنت ننكاسا إلهي نوبي مركي وصادر قبل أوتمت يا وحي تري أفير صدى هذا كان كلام جاءته تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك أنا كويري ما يناديهن أبايا كويري أنا قد دمر أنا هاي رق أميرنو أنا قد دمر أنا هاي قولي رقنا أمي ماذا كالي أميرنو لكن ما أنت إذيك قرية إنفيتيشنك أوينك قرية إنفيتيشنك هبلا إذي يريس أمانت هوتيل هبلا إذي كويريس إن أبي يدعوك إلى أبايا كويري موسو أنا كوميرين أقول لأن أنا رق أميرنو لماذا ليجزيك أجر ما سقيت لنا سيو كواب الجدو أبا الجد وكوسيو شقال النقبة درتين وين راعي لو أرنبو الشيء جوانا مركو دوا السعودية مونا ملع سنين مسويه لي قضال إجمر جد كماشو كل حن هينا هدي اللي حلو بهاي رجع حرتي الكتور ماشي يتوس جد سايتوس هذا قضال إجصعود حرتي ذا صعانين قري والتقي فجاء تمشي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه مركو أيمت يا وحير هو رستي وأغشيكي وحي كدعي مصر كو قبصدي يا فرعون يسوء صعري فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قوم كظالمين تا إلهي كابد باديي عبسن من الآمن بتشوت قبليه مركا عباد متقول إلا استاكتي مركا واحد تريا أبا تستأجره نين كان إيجار كدقو قوسار كدقو حولها كو راعو محاه إن خير من استأجرت القوي الأمين وحاو خير بدن روح أرقا كو راعو شقا كو قبطو متك حوق بدن وأمانة له لما ذي وانكو هياوي ترنين كان وأمين ومركو إلى السعودان دريمين حشون هيو وإلهي كعبسنا إنه يهي وحوق بدي هيو حولي بنور أبي سفود نوجور أبي لبدي وحلو قبل لها دن حوقنا إلهي واسي أمانة إلهي واسي لبدا سي أمبانا دتك لغو معمولي كرا مسكح ذي أمانة ده يحوق أمبانا دتك لغو معمولي كرا مركي ساعة هي سنة علماء وحي دهين وحي كودا أبيهد مركي لها ذي سنة أبا شقدان أنك مليهن شقدان رقبة إسكالي مركز تانا مبدحي كرو حشوتك وحو كينا هيا ننكن إناد شقدان سيسو وشقدان نقبتو أن كرهيسا مبنان كان آدين وفير صدا معناها إسكالان ميجو كجرا معناها سيميشو كجرا شقدي أن قبل لهن معها أنك قرقا نولو تلقالي إلهنا قرآنك وحكوية وقرنا في بيوتكنا قرقين كسقنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
jaahiliyadii hore siday bannaankii soo dhigi jireen ay dharku dhigan jireen ha u dhiganin marka annaga guriga noolagu talagalay ninkan baan helnay labadaa sifo fiicanna wata ee si shaqadan u dhiib wuu qabanayaa qaala innii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an taajuranii 8 xijaj gabdhahaygan labadan midkood baan kuu guurini si aad shaqo iigu qabato 8 sano fain atmamta 10 famin cindika haddaad 10 ka dhigtana adiga xaggaad ka aata markaa u fiirso qadiyadaasi bal gabdhahaasi waqtigaa joogay uu qur-aanka tilmaamay qur-aankana sabab buu u tilmaamay iskamana tilmaamin macna darri uma tilmaamin xikmuu ilaahay u tilmaamay limaada dad kaloo la noolaa qisadooda loo sheegi waayo iyaga loo sheegahayaa waa xishoodka ilaahay subxaana wa tacala meeshuu agdiis ka joogo waadna garateen macnaheeda ee sidaad ugu dhaqan lahaydeen falkeeda gala gabdhaad tihiin gabdhay ahaayeen jannay raadinhayaan idinkana jannaad rabtaan jannadan laguma heli karo ilaa dariiqadaas hal dariiqun baa lagu helaya marka haweenayda ee xishoonayso waa haweenayda nafteeda wanaagsan ee shariifadda ah nafteedana ka xishoonayso mar kastana qowlkii rasuulka qalbigeeda ku hayso alxayaau kulluhu khayr xishoodka kulligii waa khayr waay way ku haysaa qalbigay ku haysaa marka xayaagu waxa weeyaan aslun fii khalqati almar'a ilaahay uu ka dhigay waana sifo laazimayso meel kasta ay joogtana la rabo in laga helo lianna haweeney aan macno lahayn oo xishood lahayn kulli hataa xayawaanaadka way damcayaan eeyoo dhan baa iska damcaya ummadday ku jirtana way fasahaadayaan mar hadday xishood ku tagaan marka xishoodku waa inuu laazimo gabadha maxaa markaa keenaya gabdhaha inay xishoodka ka fogaadaan asbaabta keenaysu waa maxay maanta waad arkaysaan xaaladda lagu sugan yahay idinka laftiina aqirahaya in xishoodka laga tegay tu kastana way og tahay arrintaasi aakhir zamaan baa la marayaa calaamaatu saaca fara badan baa soo baxay ee kuwii yaryaraa uu rasuulku u tilmaamay kuwii waaweynaa unbaa hadda inta badan dhiman markaa waxa keenahayo xishood darridu maanta waa maxay aan kulligeen isku waafaqsannahay tii magaalo joogtay iyo tii miyi joogtayba laisku waafaqsan yahay xishoodkii inay gabdhihii ka tageen waxaa ugu horeeya gabadhani sababtii loo abuuray ma bayna garaninba sababtii loo abuuray iyo hadafkii loo abuuray iyo taageedkii loo abuuray maba garanayso ruuxii weydiiyana wax kale uga jawaabaysaa oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aan jirin hadafkii markuu dhumay iyo taageedkii iyo yoolkii noloshan ilaahay uu ka lahaa markuu qalbigeeda ka dhumay xishoodkii waa ka dhumay iyadana leanna ruuxa markuu hadafka ilaahay u abuuray uu garanhayo ilaahay buu ku xirmayaa ilaahayna xishood buu siinaya marka hadaf darridaasi gadaal aan u noqonno war maxaa ilaahay noo abuuray ilaahay wuxuu noo abuuray dhulkan inaan camirno cibaadadii ilaahayna aan ku camirno oon sahaydii aakhare aan ku badbaadi lahayn aan ka qaadano wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadadii ilaahayna xayaa un bay ku imaanaysaa lianna ruuxaan ilaahay ka xishoonaynin cibaado quban ma cibaadaysanayo xisaab baa loo edgelaysaa marka hadafkii bal aan ogaano war ilaahay muxuu noo abuuray annaga haddaan dumar nahay mise waan iska noolaanaynaa oon maalintaan dhimanan waan arkaynaa taasi waxaa ka dambayn xisaab baa ka dambaynaysa mar hadday xisaab dambaynayso war ilaahay muxuu ii abuuray waa inaad ogaato laba ilaahay awaamirtiisa oyna dan ka gelin gabdhaha oyna fiirininba raggaa la rabaa inay awaamirta ilaahay ilaaliyaan oo ilaahay amarkiisa fuliyaan ama annaga dumar haddaan nahay annaga ducafaa nahay masaakiin baan nahay raggaa naga xoog badan awaamirtaa ilaahay ma qaban karra waa inaan ka tillaabsanno yaa dhahay saas sax miya mise waa khalad weyn waa lianna ilaahay dadka dhan wuu la wada hadlay ragga keli ma aha awaamirtii ilaahay yaa la ihaanaystay oona ihtimaam loo yeelin meel kastay taagan tahay waxaan macno lahayn dhan bay fiirinaysaa marka xijaabkii sharcigana gabadha maba lagu karahayaba xijaabkii sharciga xiro ma xiran kari wuu kuleel badan yahay markuu kuleel badan yahay jirkaaga bannaanka dhig maa lagu taasaa ka ciqaab badan kuleelkan maanta aad ka cararayso kuleelka jahannama ka kulul qul naaru jahannama ashaddu xaran naaru jahannama ka kuleel badan markii munaafiqiinta la dhahay war tabuug aada ee baxa waa kuleel bay dheheen
marka waxaa la yidhi qul naaru jahannama ashaddu xaran kuleelkan aad ka cararaysaan yaa naxariis noqon maalintii jahannama laydin dhumbiyo qul naaru jahannama ashaddu xaran kuleelka dabkaad shidato oo guriga ku yaallo bal gacanta dhex dhigo ee ku hay cabaar ma ku hayn kartaa la hataa ruux agtiisa istaagay malaha jahannamo waa 70 jeer la laalaabay dabkaasi yaa 70 jeer ilaahay la laabay kuleelkeedu waa saas dadkay rabtana iyada u yeeri doontaa soo qaban doonta marka ilaahay awaamirtiisa inay qalbigeena ku weynaadaan haddaan dumar nahay oon ilaahay awaamirtiisa ilaalinno oon ilaahay awaamirtiisa ka soo baxno taasna xishoodka uu nagu xambaaro ilaahay uu nagu abuuray subxaanahu wa tacaala tan saddexaad التربية السيئة تربية حن إجريها كجرت ويدي حوي أنتو إلهي كحشون يسمعها درجة جابن هي صلاة دري هي عبادية ريبة يقول يلا شوكتها قبل هذه حاجة هذا يعني ويد بكدينا تربية حن إجري كصعد وإلهي اللي ولاد علمها هي وواحد معنا لين لفرسان هي تلفزيون يقول ويا الله يعني قبل كاستمع عندي سديتير واستدرجين كارتو تلفون قعنت اللي يجي لنا هيو عقلي يقول كلا بحن وحنا يكلا وجين صاحب بدد يو ولا عليه وحنا يفرسنا يان تربية ورن باس كل حنا قنتي وحي إلهي حق إلهي بنان كلا جمرة وحاس إلهي وحكم اللي بهيان هنا لنا إنا إلهي وحكلا مقنه إلهي سبحانه وتعالى حديث قدسي وحكيري لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا هدي روحه وعبس بدن وإلهي وعبس بدن قلبينا من انتنا أدون كنا لن أعوض النقطان بقرتو يدو حكم الزيادة نيسان هدان النقطان قلبي متك وقع لما بدن بقرتو يدو حكم النسخة من نيسان إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأعماشنا ونذين كوبا هيو ونذين قرى هيو ما لنت قيامة روح خير لسينا إلهي كو شكريو روحي وحا خير عن هين هلنا نفتي سون هلا دقالو لأن إلهي رسول بكو صادري حقي بكو شاقي وحكستوا على الوقاحي جدك وعديها الولاي ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه روح النولان ونكسن دون آخر كل نولاننا عدانها كل نولادو روحي هلاك سمن عدانها كو هلاك سمو الغو شيء مركا من بطأ به عمله روح عمل كيس الدبلغو لم يسرع به نسبه نسب كاغي يما يرحم عنك يا اوغاسد يا جرادد يا وحسن اها اني waxay dhawaan karmaa baarlamaanka adduunka ugu weyn baan ku jiray United Nations kala shaqeynay ilaahay agtiisa oo saafta ma shaqeynayso ruuxu amalkiisa dibdhigo nasabkiisa ma hormarinayo inna akramakum inda allahi atqakum kan idinka ilaahay agtiisa u kara badan waa midka ilaahay ugu cabsi badan subhanahu wa ta'ala marka aqlibu ilaahay ku siiyay miisaan umurta hageed ka jirta waa inaad miisaanto way saddexaad al-ikhtilaat ragii haweenku isku dheehan meel waxbarashada tagto isku jiraan iyagoo baby class iyo pre unit iyo standard 1 dhigan haya la isku daraya maxaa way waxday kala faa'iideysanayaan dibka ka imaan doon hadhow lama fiirinayo iyo mafaasida ka dhacayso laana gabadhan waxaad ku barbaarisay inay wiilasha iyo ragga loo dhawaado inay caadi tahay hadhowta ku kalimaysid ka dheeraw meeshaasay saaxiibtinimo ka bilaabaysa iyo xishood darri halkaas kii ay maanta baratay berri ka dadan mayso ikhtilaadka meel kasta ka jira wax kala ilaalinna ma laha waxa ka dhashay xishood darri iyo nidaam darri iyo fasaad aan la soo koobi karin iyo zina iyo ilmo habeen kasta meel laga qaadayo laana bini aadamka ilaahay wuu ku abuuray غريزدان رجنا مركي قان جاران هوان بيو إيلانيان هوان مركي قان جاران رج بيو إيلان هدان لك كلا إلى الفساد وين بدعيا شوتك مش كتجية شوتك مش كتجية مركا اختلاط كاسد دبلن بوكاني والسكوت دار رجي ويش ورويلشي قبل عصر دكتان ليدي وحوم بني آدم ويان نفترض أنه ضعيف إيمانك وحو حجنا يعني مجرو إن يسكت له غادان مبا بل لا يعير هذا وحو يدين إنسان فاسألوهم من وراء الحجاب واحد كوي ديسان الله كان على وراء الحجاب يضرب حجاب لي عقل كتاجن واللودي لهوانك إن هذا معنا هنا وجبنا كوا الله ولا فلا يخضعنا بالقول
فيطمع الذي في قلبه مرض هذا الكاسي حتى هذا الكاسي عادي إن الله هذا الشيء هذا وحن معنا لهن وهذا الاسكولا هذا أو الصوت دوبه تلفون كورك الاسكولا هذا الاسكولا هذا وحصدن قلبك الشيطان بكفى إذا شيء سوى السؤال منه لأن إلهي سبحانه وتعالى شرط أنت الوجود عن أبواب شرط ضمب نجحري لكن أنا وحانري إلهي وأبواب شرط آخرتي مصلحة نجوم جبتي وأنا فرنا وان فرناي محاد عاي مركا محاد عاي إلا احترام واي ووحن معنا لهن ودعوا فساد فربنا ودعوا جوابنا حشوتك فائدين كيس إني جرم ويدو حشوتك وحن لشيء جنبه هي دلنتيد بكويه هي دلنتمجال دلنتيد بكويه وحن حشوت لشيء هي علومات يودتك خيرك بدن خيرك وذيك الله يعني ما فهم سنة فائدين كلها ما أنت شرفت هذا دول كل أعضاء عندك على قاضيسا مرضوا شرفت هذا دول كل أعضاء ولا جاتبي إلهي ورثه بكيني لكن بني آدم كقلب والله كنعض إلهي توبه كأقبلية لكن حويا ما أنت شرفت هذا كل عيارته وحن أوجاتان قبلها ولا عليها نقول شيء هيو وكستو حدون هيا قروح هذا إيه شرفت هذا سين ولا دجالمه وحكي له مجيده كان صاحبك كلنا نقون هيا هذا كان معن كو أقرن هيو دركاسي ودتك سوقاته حرن هيا جاري ولي ولا روح كسوقاته وكوسر هيو ما أنت يسود يبتو مساعد نلا فريسته السجع روح وهو كدعيرين يكون عيبين يسويان لماذا؟ لأنه حويان وقرنيا حتى دجور كهذا شكست وقول وان جورسن دونا هو حسن قوس ماينيا مر لكن هدي ماشى ليسجارو وكتوريا لأنه حدي بريم كي يقول كوزا قشوا ركل اللي شيء يسوى ناقح واي ساسوجو هسكو عيار مركا حشوت كان يكاتجين حشوت كان يكاتجين ضد بدن بيساكو دعدي عربي عجنبه أو مركي دم بانتحار أزدلي رجع كوكل صنايين كالصوني بين أيسيين مال بنان كذا دقاقي مال بنان كذا دقاقي شرفت هذا مركز إلى شطو أي ضد كان أكتر شرفكو يلنس وجمر قيمة بدن نقونيسا ومروفي عنا مستقبل كان نقونيسا لكن ما أنت شرفت هذا كل عيارته وتبقول رجل الشيء كيستو مركز دم نحضر أتقشوا وحويا واد بعضي الدون كان إلهي سبحانه وتعالى وحويا ضد قلب جوض كان عيسى مركز شرفت هذا وإنا إلى شتو فوائد حياة حشوت كولية ذوقاته تمكلا صفات كنتي رجع إنا لا ترتنا شقويك يجي إلهي وطلق علي وإنا قبلنا لماذا equality وإنا يجرتو مساواة وإنا يجرتو أنا رجع حين وقصر ريال شقة يقطو وان قبل كرا وحوق بناي وأردي كرا وانزدوج جدين كرا برلمان كان جري كرا دكامل جري كرا ملك استنتي كرا جاري وولي كرا ديارنا كحين هلا خلاص شقة رجع قبل هاي نردن آيات كلها ترتنتي حشوت كماشي كتجي لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس تابشرة فرها بدن إس أرجع إس أجمل مركا دم درينك تكسينه درينك تكسية درين مرة دكاتة كنا دي حشوت كبو هاي درينك حشوت كتك أوفر صدا مركا هوانك حقيقي شو كان قوليها ما يفريان مسرقة إلى شقينه تي هذا ولا لي يقولي فريسو حتى أنا كبيلة وحكي صوب بهانت كسينة يا أنا ما أنا كنت أكسر وأنا شقيسان كراي حقي لا في كلي ويلا صو شقيسان رجع لا صو شقين رتا رجع اسمي بدبادنا يا ما بدبادنا يا هوانك يوروب ساو أردي رجع دحق لا شقي ما أنت ويكقوم مسيه يجوا قالعة لأنه وحين نقدين وحق عمها رجع يكون عياران بنقدين عيار بيجلن لو عياره سيد دركا مد بمالي ولا بيستو سيدا سيكو بابين ويقار قوم ميان وهدان أجهي ولي شقة مجلن أنت كريقا دوفنيسو اللات كل دوفنيسو يروح حفاظ فديدو إن ده حنكو فيرنيسو قعنت اللي جاري سابا كدرن أنت الملك اللي جاري إيه أنت هذا كقاب كدرن كل هذا ليس أنت بس أكو في لمبا شرف دري مركا النجوا هدان هاي شقة سواء قبلنا سكولا سود مي سكندري سود مي جامعة سود مي مقولي أنا بتاعنا يدي فديو شقة هنا قبته ولي كسيدر عن مدحتني ما عن رئيس الوطن نقضه اللي هي كوريني شقالة كوريني مركي يربطنا الدلي مركي يربطنا من دي كدوري مركي يربطنا صن صيني يا جوكتا ولي عنتدي لو قلت لك علي انت افعل هذه ذا كعني انت صهرت هم بدل السينيسا كل ولا وضعكي كي يوغاندو كل والوارك وانا بوح واي المهاي واحد كو امنتي او مستقبل كاغا iyo noloshaada dhan ku noqon laha mustaqbalka dad kale aad ku aamintay anigana waxa tahay raggan la bartamaya raggan la tartamaya
xishood darri bay keentay arrintii xishood darri bay keentay tan kale waxa weeyaan gabadha inay dharanto in la liidahayo sababta in la liidahayo dareemi war wax waa xukmi ilaahay baa ku hadlay subxaanahu wa tacaala maya waa la liidahayaa waa inaan isu soo saaro waa inaan dhar fiican aan xirto oo jirkayga si fiican loo arko oon ma jidkaa maro oy dadka ila yaabaan aniga maxaan dharkan isugu dadi yaa asturahayo oo la qaadi laayahay aad u malaynay muxuu ahaaya qabri xuduudda ilaahay subxana wa taala waad gudubtay waman yatacadda xuduud allahi fa ulaa'ika hum aalimuuna geli kuwaasi waa aalimiin waay aalimiintana jahannamaad sugaysa marka inuu ruuxu nuqsaan dareemo uu kamaalka iyo dhammaystirka meel kale uu ka raadiyo uusan ilaahay raalli ka ahayn taana sabab weyn bay noqotay gabdhaha guriga ha fadhiistaan wax kasta waa laydin diyaarin ilmaha tarbiyeeya dadkan dhan yaa soo saaray haween baa soo saaray haween baana soo koriyey na soo barbaariyey wax sababtoodan aan ku baranay guriga noo fadhiyey iyaga nama soo barin waxba dugsina mayna imaanin iskuolna ma imaanin meeshana waxaan ku gaarnay ducadooda iyo fadhigooda gadaal ay ka fadhiyaan markaa gabdhihiinan maanta yaryar ee ku fikirhaya waxayna dadkii hore ayeeyadood iyo hooyooyinkood ayna ku fikirhayo dadkii hore waxay wax ku islaaxiyeen unbaad ku islaaxin wax kale kuma islaaxinaysid islaaxa meel kale kama imaanaya wanaagga markaa bal gadaal ugu noqda dadka idinka nool ee taariikhda haweenka 70 iyo 80 jiro bal wareysta xagu ahaa xaalkooda suu ahaa xaalkooda way garanayaan suu ahaa wareysta oo khibrad ka qaata maanta adduunkan wuu hormaray adduunka dhan wuxuu noqday tuulo yar oo wax kasta gacanta lagu wato shay kasta waa inaan fiiriyo indhahan ilaahay uu ku weydiini inna samca walbasara walfu'aada kullu dalika kaana canhu mas-uulan kullu ulaaika kaana canhu mas-uulan kulli ilaahay uu ku weydiin indhahan waxay fiiriyaan afka wuxuu cuno qalbiga wuxuu ku fikiro kulli ilaahay uu ku weydiinay marka aniga maanta adduunka gacantaan ku wataa meel kasta waa inaan tago meel kasta waa inaan fiiri laakiin maxaa ka dambayni qalbigaaga unbaa gubanaya qalbigaagaa baaba'aya maanta wuxuu ilahay raalli keenaad fiirsato oo waxyaalaha qaar ay dadka fiirsanayaan ay ku farxayaan waxa weeyaan waxyaalaha taa ibliis uu ka xishoodo ibliisa ka xishoonaya markuu meesha ku gaarsiiyana oo aad gaarto meeshaasi isagu kaa cararaya lianna wuu ogyahay meesha ruuxi gaaro halaagii ilaahay imaanaya halaagii ilaahay meeluu ku imaanna ibliis ma joogahayo dadkii beder dagaalkii galay quraysh markuu soo kaxeeyey uu dagaalkii meeshooda keenay uu ka noqday maxaa war xaggeed aadee waxaadan arkaynin baan arkaa buu yidhi anigu waan tegayaa maanta meesha lagu noolaan maayo marka walaalayaal waxa weeyaan waxyaalaha aad dareemayso ilaahay baa ku karaameeyey ka saar qalbigaaga ilaahay ugu dhowow ilaahayna bari shaydaankan ku waswaasahaya ku baadaynaya inuu ilaahay kaa fogeeyey subxaanahu wa tacaala cilmiga sharciga ayna baranaynin gabdhaha wuxuu keenay xishood darri buu keenay lianna cilmigu iyo camalfalkiisa xishoodka ugu hagaya xishoodka ayuu kugu hagaya inta badan gabdhaha waxaa lagula dadaalaya iskoolla geeya secondaryha ka baxaan jaamacada way ka soo baxeen way imaadeen gurigay soo fariisteen alif iyo ba midna garan mahayaan si loo tukada garan mayso anigaan indhaha saaray gabdha form 4 ka baxay imtixaan ka qaaday qaarkood hataa suuradda ugu yar qur-aanka qori waaye marka ilaahay maxaad u haysaa subxaana wa tacaala adduunka meelaad ka gaartay maantana shaqo ma haysid wax shaqo ku siinahayana ma jiro lianna waad isdullaysay ilaahay agtiisana dulli baad ka tahay maadaama qur-aanka ilaahay iyo cilmiga ilahay uu soo deji aada waxba ka ogeen cibaadada aad ku jirtana jahli aad ilaahay ku caabudayso ilahay waxba kuguma falahayo ilaahay idinka olmaba laydin soo dirinba kutubta la akhrisanhayo inaad dhegaysataanba cilmigan la baranhayo waa raggaa iska leh ragga ha bartaan culumaha ku noqdaan meelaha nooguma muxaadarayaan idinka markaa salaada si loo tukado sida loo soomo sida dhiigga la iskaga habayo waxaasoo dhan annaga shaqadeenna ma aha wixii hataa adig ku raacsanaa ee la rabo inaad gooni la noqoto waxba kama garanaysid sida ilahay ku caabudi sida ilahay waa xusheey subxaana wa tacaala ha la isu sheego ha la isweydiiyo naftaada gadaal ugu noqo iswarayso kayfa tacbud ullah ma walaalka iyo aabbaha iyo wadaadkaada ku tukani la nin kasta gooni ilahay ula xisaabtamaya goonibu ilahay ula xisaabtamaya xishoodka markaa wuxuu keenayaa cilmiga ilaahay inaad barato ood ilaahay ku caabuddo cilmi aad ku caabuddo adoo garanhaya waxaa kale ee keenahaya inaan xishoodka ka tagno dadka reer galbeedka ah yaa waa madaxaan saarannay waxaan u aragnaa ummadda u qiimo badnayd lianna way qaalib noqdeen adduunkoodana way dhisteen wax kastoo fiicanna iyagaa soo saaray iyagoo in lagaga daydo gabadhii maanta
surwaal gaaban soo xirato ee iyaga ka mid oo laga arko telefisyoonka berrito waa in suuqa la keeno annagana aan gadanno wiilasheenna kii timaha si xun u xirta mise surwaalkiisa meelahan ka jeexo waa wax fiican surwaalada waa in la keeno suuqa aan xiranno xishood darri baa meesha ka dhashay iyo qaylida ay ku qaylinayaan haweenku waa xor waay yaan la cabiidsanin yaa cabiidsaday ilaahan ku dhaari yaa cabiidsaday yaa addoonsaday waad addoonsateen muslimiin haddaad tihiin islaamka unbaa la rabaa in lagu burburiyo wax kale lama rabo gabdhihiina way dhagaysteenoo bannaankay u baxeen ilaa ay qaarkooda hataa ee muslimiin isu sheegahaya ay ugu yeeraan gabar iyo gabar waa inay isguursadaan maysa gaareen ilaa hada alxad oo xishood darri ah ilaahayna subxaana wa tacaala xuduuddiisa lagu xadgudbaayay ragga waa loo baneeyey oo gaalada u banaysay annaga gabdhaha in lasu baneeyo haya meesha ka timid ciqaab ilahay oo soo degaysa xanuun aan jirin baa ilaahay keenaya weligii aan dadka hore ku dhicin waana ka wuu imaaday maanta wuu joogaa caalamka wuu joogaa dhigkar lama aqoonin oo skor lama aqoonin oo kansar lama aqoonin waxan dhan lama aqoonin cudurradan muxuu xagga jinsiga ka dhasha lama garanaynin ummad doorsoon bay ahaayeen meeshii wax marin lahaayeenna ilaahay u baray mariyey sidaasna dad ku dhalay ummaddana ku badiyey laakiin maantu jidkii ilaahay baa laga leexday cudurro aan laga bixin laga dhammaanaynin baa ilaahay dadka soo dhex dhigay taana waxaa keentay xishood darri haweenkana ugu sababa ugu weyn lianna hadday iyaga is ilaaliyaan wallahi mujtamaca inta kale uu doorsoomaya tu kasta xaqeeda ay garato sharafteedana ay garato wax fasaahadinayo dhan rasuulka sal allahu alayh wasalam ittaquu fitnata annisaai wey haweenka fidnadooda ka cabsada oo iska ilaaliya fidna ugu horraysay reer bani israa'iil gashana haweenkii ka ahaata haween ka timid marka waxaad tihiin hub hadduu ilaahay hubsa islaax oo wax lagu wanaajiyo ilahay idinka dhigana ummadda way toosi haddii hub wax lagu fasaadiyo noqdana ummadda dhan way fasahaadaysaa waxaa soo degaya muxuuha ciqaabta ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaloo keenay xishood darridaas inay dhulka gaalada loo tahriibo loo safro la dhaho meeshaasay noolal naga jirtaa war jannada miyaad ogtihiin meeshay jirto maraykana laga helaa maraykan waa la tegey maxaa loo tegey dad qaaqaawan baa loo tegey oon ilaahay garanaynin oo ciqaabta ilaahay habeen iyo maalinba midkooda sugahayo gabadhii way isu soo sawirtay meel qurux badan biyo ka duulahayo meel muxuu ahaaye wanaagsan iyadoo meel fiican fadhido tii meeshan joogtay usoo dirtay tii kalena way tahriibtay way dhaqaaqday magafaa dhexda ku qabsaday ku silciyey lacagaa loo diray waa la gudbiyey mise waa la dilay meelay ku dambaysa la garan mahayo waxaasoo dhanna maxaa keenay diinta ilahi laga fogaaday lianna ma wa yaqiinsanin risqi ilaahay uu noogu keeni lahaa maraykan intuu noogu keenaya ma yaqiinsanin yaqiintii markay luntay uu xishoodkiina lumay ayaa muxuu aha isku dhexdhaqankaas u imaaday ilaahayna cuquubaadkaasuu jidka u dhigay dadkaas rag iyo haweenba marka waddamadaasi oo loo guuro oo lagu fikiro in loo guuro si dadkaasi hormaray ee indhahaasoo saas ah oo jidhkooda saas ka dhigay oo hagaagsan oo jannadii adduun ku jiro aan u tagno maxay janno adduun ku jiraan ruux gaala muxuu haya ruux gaal ah ilaahay subxaana wa tacaala ku iftirooday adigana waxaad ka raadinaysaa nolol keesh ilahayna wuu ka fogaaday subxaana wa tacaala maxaad ka heli maalintaad jiiraan la noqoto ood ilaahay ku xirmi weysana jidkiisaaad maraysaa labadiina naara jahannama ayaad fircawn iyo abujahal ugu tegaysaan meeshaasaad u dambayna marka walaalayaal asbaabtaasoo dhan way keentay xishood darridaasi maxaa daawo u noqon karaa waxaa daawo u noqon karaa inaan ogaano wuxuu ilaahay noo khalqay subxaana wa tacaala oon ilaahay ku xiranno oon cilmiga ilaahay noo soo dejiya aan baranno gabar kastana sharafteeda iyo wanaaggeeda wixii ku jira ay ogaato ilaahayna oga cabsato waa la arkaa shaydaan in badan inuu dadka uu ku ciyaaro ilaahay baa uu soo saaro imtixaan dadka oga dhigay laakiin madaakhisha iyo meeshu shaydaan kaa soo galo dhan waa inaad ogaato ood iska ilaaliso saad ilaahay agtiisa ugu badbaado marka waxaasoo dhan waa inaan iska ilaalino oon ilaahay u noqonno oon ilmaheenna tarbiyo fiican aan tarbiyayno oo ruux wanaagsan aan isku xiranno oo nolol wanaagsanna noo keeno ilaahay uu raalli ka yahay war guri bannaan oo hal furaash dhex yaallo ayaa kuwa fiican oo ilaahay lagu caabudayo guri wax kasta la keenay oo wax kasta yaallo qaarkooda aan la isticmaalaynin 3 telefisyon 4 telefisyon yaallo wax kasta laga fiirsanaya kaasaa ka cuquubo badan kaas horaa ka baraka badan marka adduun iyo been hawaasi waxaan macno lahayn ha isku mashquulina naftiinna runta u sheega ilaahayna in loo socdo u sheega naftan haddaan la xakamayninna waxay la mid tahay
ilmo yar oo naas la nuujinhayo on weligii laga gurinin marka dambe hooyadiisu gambar usoo dhigaya hooy fariiso waa nuugi saasuu ku socon naftan markaa adduunku waxay la mid tahay ilma naas nuugahayo oon laga gurinin waa in laga qabto markaa waa in laga guriyo suu haddee nin rag mise ilma wanaagsan oo ordahayo dadkiisa dhexmaraya u noqdo kadalika naftan waa saas marka walaalayaal dadaal ayaa loo baahan yahay iyo mujaahado iyo nafta in lala dagaalo ruuxii naftiisa ka adkaado unbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudi karaa si la rabo waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana dadkii annaga nafta jidkeenna ku jihaaday oo naftooda la jihaaday oo cilmiga bartay waan ku hanuuninaynaa jidkeenna wanaagsan hanuunkaasi ilaahay baa na siin karaa subxaanahu wa tacaala markaa xaaladdu ma fiicno bishaarooyin fara badan way jiraan gabdho badan oo qiimo badan oo sharaf badan oo diinta barto dadka diinta ugu yeerahayo oo dadaalahayo way buuxaan laakiin inta kalaa ka badan dadka in la dulmiyo ma fiicno laakiin waad ogtihiin idinkaana naga yaqaana waxaa ku soo biiro mujtamaca ee gabdhaha qaar iyagoo gashaantimo ah ay addict noqdaan ay isticmaalaan waxyaalaha maandooriyaha ay gabdhana u hagaan inta badanna waxaad ogaataan gabar unbaa fasaahadisaa wiil gabar ma fasaahadi inta badan gabadhan yaa wiilkan u geynaya gabar kale u geyn gabar kale unbaa fasahaadin markaa cadowgaaga iyo saaxiibkaaga waa inaad kala barato waxaa la ii sheegay oo maalin dhaweed hataa nairobi ka dhacay gabdhaha inay gabdho kale intay kaxeeyeen wiilal u geeyeen ay uga soo baxsadeen meesha lagu faraxumeeyey wiilasha mayna garanaynin gabdhaha loo geey gabdhaha meesha loo geey qaarkood hataa waxaa la siiyaa waxyaala maskaxdooda kaali shahbaad nala soo cabi gabar iska fiicnayd waxaa la rabaa in la fasahaadiyo jidkana la geliyay iyagay ku jiraan lianna gabadha zinaysato kulli haweenka dhan waxay jecel yihiin inay zinaystaan lianna iyada xumaan ku jirtaa kulligood waa inay xumaan la galaan marka gabdhaha meesha waa la timbinaya shaah iyo wax baa loogu darayaa meesha markay maskaxdeeda si kale noqotaa rag lagu fasaxaya markay is aragto iyadoo meesha ku dhacday oo gabdho kale hataa noo yimaadeen sawirro laga qaaday ayaa hadhowtay waxaa la dhihi sawirradaadaan fidinaynaa mise soo dhiib carabna waa lagu sameeyey dad aan carab ahaynna waa lagu sameeyey qisooyinkaasna way buuxdaa markaa sharaftaada ilaasho meeshaad geli iyo ruuxaad la socoto iyo meesha ku wado waa inaad garan ruux doqonaa inaad noqoto maaha aan caqli lahayn adduunkan maanta siduu maraykan adduunka kale ugu ciyaarayo ayaa dadka dhexdiisana loo baray oo mujrimiin ku jiraan ay gabdhaha ugu ciyaaraan markaa xishoodkayaynu ka tegine xaq ilaahayna aan baranno diinta ilaahayna aan baranno aan ku dhaqanno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkana waafajiyo inuu wanaagana waafajiyo uu khaatumada noo hagaajiyo ilmahana noo hagaajiyo annagana nolol fiican nagu dilo kuwa nolol fiican ku noolaada ilaahay naga dhigo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابة إلا أصلحتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.